labada nin u jeedaan ee soo socda waa laba nin oo tuuga ah waxay xadayaan cuntada ama badarka aad u jeedaan ee halka yaala waana laba nin oo tuuga ah oo ku soo heshiiyay inay xadaan cuntada ama badarka halkaas yaala kadib ninka kale saaxiibkii wuxuu ku oranayaa intaas ayaa inaga badan kadib way daboolayaan isagoo dharigii kala daboolaya waxa ku soo jeesaday ninkii chefka cuntada karnay waxaana ku dhahayaa inta maxaad ka sameynaysaa cuntadan waa cuntadayda marka ninka tuuga ah wuxuu ku andacoonaya uu dhahayaa waxaan ahay ninkii khashinka ururinayay khashinka ayaan raadinayay oo inta kala raadinayay ku dhaha kadib ninka uu tilmaama oo kaas qaad ayuu ku dhahaa bartan hore iskaga socay ku dhahayaa kadib ninka tuuga wuxuu soo qaadaya khashinka waxaanu bilaabayaa inuu ku guro foostadii uu watay inuu khashinka ku guro kadib saaxiibkii ayaa soo baxaya ku dhahay waa maxay khashinka adigu wada asagana wuxuu uga jawaabay ku dhahay yaalina dareemin dib u gal khashinka ayaan guray ayaa ku dhahay kadib ninku dib ugu celinaya kadib ninka tuuga wuxuu celinayaa khashinkii waxaanu doonayaa inuu meesha hore uga dhaqaaqo intaan loogu iman ninkii booska la ee lahaa meesha ayaa imanaya kadib isagoo ninka raba inuu baxsado ayuu yeerayaa ninka booska waxaanu ku dhahayaa joog halkeed ka timiday kadib ninka tuuga wuxuu ku oranayaa waxaan ninka khashinka ururinayay kadib ninka booska ayaa ka oranaya khashinka waad ka soo absaatay maalin kastana waad soo absaantaa hore u imaaya lagu oranayaa waa halkaas yaala hadda ma aanad qaadin kadib ninka tuuga uu calaacalaya waxaanu raali gelinayaa ninka booskiisa waxaan lagu dhahayaa baxad qaad ayaa lagu dhahayaa kadib ninka booska wuxuu ku soo noqonayaa ninkii cuntada karinayay waxaanu ku dhahayaa cuntadii ma karisay ku diray isaguna uu soo raacaya kadib waxa uu tusayaa cuntadii ama badarkii uu kariyay kadib ninka booska wuxuu arkayaa cuntadii oo dhulka lagu daadiyay waxaanu weydiinayaa ninka chefka ayaa dhulka ku daadiyay kadib isaguna wuxuu ugu jawaabayaa ma garanayo kadib ninka booska oo la diriraya ninka chefka ayaa wuxuu arkayaa dhari halka yaala kadib way soo dhaqaaqayaan waxaan isku dayayaan waxa halkaas ku jira intaasi kadib ninka tuuga ayaa ku soo cararaya waxaanu ku dhahayaa inta khashin ma yaalo waxaanu rabaa in asal ogaanin cuntada uu xaday kadib ninka chefka ma dhageysanayo balse wuxuu isku dayayaa inuu eego waxaanu arkayaa cuntada ay xadeen kadib ninka tuuga wuxuu isku dayayaa inuu carro balse waa la qabanayaa sidoo kale waxa la ogaanayaa saaxiibkiisa tuuga ah inuu ku jiro meeshii lagu ururinayay khashinka isagana waa la qabanayaa oo la soo saarayaa inta kadib booska iyo chef waxay bilaabayaan in labada nin tuuga qabtaan oo ay garaacaan halkaas